أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انت بعد يد كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير. waxaan halkan uga dirayaa hambalyo ku aadan munaasabada ciidulfitriga dhammaan ummadda Soomaaliyeed, asxaabta, qaraabada iyo ehelka intaba iyo intii wajigayga muuqayga iyo magacayga garanaysa. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, farxad iyo barwaaqo iyo bashbash ku ciida. ilaahay sanadkan sanadkiisa kalena hayna gaarsiiyo annagoo ku nool amni caafimaad, ilaahayna cibaado suuban uu ina siistay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, allihii islaamka inaga dhigay ciidan iyo maalintan farxadda la ina siiyey, asaga ayaan uga mahadinaynaa. ilaahayna mar walba asagaa mahadsan subxaanahu wa tacaala. ilaahay dembi dhaaf ummadda Soomaaliyeed ha siiyo, ducooyinkeennana allah naga aqbalo. intaa bacdigeed waxaan jeclaystay halkan inaan munaasabadan ugaga faa'iidaysto dhowr arrimood oo dalkaygii hooyo ka taagan, aniga oo ah Cali Xirsi Kaarshe, tifaftiraha website-ka somali.com www.somali.team.com. waxaan halkan hambalyadaas bacdigeed usoo tabinayaa ummadda Soomaaliyeed. waxaan jeclaystay inaan la qaybsado dhowr arrimood oo siyaasadood oo maalmahan waddankayga ka taagan, kuwaas oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, arrimaha doorashada, shirka IGAD iyo joojinta qaadka. ugu horreyn haddaan ku hormaro, waxaan marka hore hambalyo iyo bogaadinba u dirhayaa dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay inay shir ku qabato dalka Soomaaliya oo muddo badan dagaalo sokeeya iyo dhibaato ay ka jirtay. shirkaas oo ah shirka sanadlaha ah ee ururka aan ka midka nahay ee dowlad goboleedka IGAD ay ku qaban doonaan dhowaan haddii allaha awoodda leh uu idmo magaalada Muqdisho. arrintaas aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa haddaynu nahay shacabka Soomaaliyeed ee wanaagga iyo horumarka iyo dowladnimada jecel. waana taageersannahay, waana ugu hambaleynaynaa dowladda iyo kaalinta ay ka cayaartay iyo sida ay iskugu taxalluujinayso in shirkaas uu qabsoomo. waana soo dhaweynaynaa, waxaana kula dardaarmaynaa ummadda Soomaaliyeed inay soo dhaweeyaan. dadweynaha ku nool magaalada Muqdishona waxaan uga hambalyeynaynaa oo aan ka codsanaynaa inay dul qaataan, amnigana ka qayb qaataan, ayna sugaan in caasimadda Soomaaliya magaceeda maantay ay difaacaan oo ay kor u qaadaan oo ay dowladnimada iyo magaca Soomaaliyeed iyo nidaamkaba aynu wada qaadano. taasi waa qodobka labaad waxa uu yahay joojinta qaadka, oo aan aad iyo aad u taageersanahay, dowladdana ku taageerayno. waxaanan dowladda ka codsanaynaa, iyadoo eegaysa dhibaatada uu qaadku ama jaadku ku hayo geyiga Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba, xag dhaqaale haddii la fiirsho, xag amni haddii la fiirsho, xag akhlaaq haddii la fiirsho, xag diin haddii la fiirsho, xag anshax haddii la fiiriyo, intaba iyo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo maxaa la yidhahdaa xag caafimaad iyo xag nadaafadeedba, qaadku waa dhibaato weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku habsatay muddooyinkan dambena aad iyo aad iyo aad u baabi'isay, xag dhaqaale iyo xag siyaasadeed iyo xag maxaa la yidhahdaa amni iyo xag caafimaadba. waxaan dowladda ka codsanaynaa joojintaas ay joojisay qaadka inaysan mar labaad nagu fasixin, ayna dhammaan mamnuucdo qaadku meel kastuu kaga imaanayo, hadduu ka yimaado Kenya iyo hadduu ka yimaado Ethiopia iyo hadduu ka yimaado dalal kale sida Yemen oo kaleba. waxaan codsan lahayn in haddii ilaahay idmo lagu daro sharciyada mamnuucaya qaadka oo la geliyo kategoriga ama qaybaha daroogada iyo alkohoolka iyo waxyaalaha dalka ka mamnuuca ah, ka ganacsigooda, keenistooda iyo isticmaalkooda intaba. arrintaasi markii laga dhigo sharci oo sharci dalka u yaala laga dhigo, waxay sahlaysaa
inaan si sahlan loogu dhiiranin qofkii keenana sharciga la waafajin doono qodob ciqaabeedna loo samayn doono xabsi iyo xarig iyo dil intaba uu mudan karo haddii lagu qabto qofka ganacsanaya qof keenaya ama isticmaalaya intaba taasi waa middaasna waan taageeraynaa waxaana ku adkaynaynaa dowladdan hadda jirta iyo midda imaan doontaba inay qodobkaas aysan dayalsan ayna dhegaystaan dhawaaqa ummadda Soomaaliyeed ee samaha jecel ee ka soo horjeeda cunista ka ganacsiga iyo keenista qaadka oo malaayiin dollar cagaar nool kaga bedesho annagoo lacagtayagii adkayd iyo dhaqaalahayagiiba ku baabi'nay qodobka saddexaad ee aan doonayo inaan ka hadlo waxa uu yahay arrimaha baryahan dambe ka soo yeeraysa mucaaradka iyo in dowladda waqtigeedii uu ka dhamaaday waa sax doorashada dowladda waqtiga loogu talagalay 10 bishan ayay ku ekayd laakiin shirarkii madasha qaran ee la qabtay waxaa lagu heshiiyey in 50 cisho loogu daro dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan sida baarlamaanka golaha fulinta golaha madaxtooyada iyo golaha garsoorka intaba sidaas aawadeed qolyaha ku doodaya madaxweynaha kaliya ayaa waqtigii ka dhamaaday oo xilka ha wareejiyo ha ogaadaan madaxweynaha marka uu xilka wareejinayo inaysan ahayn markaan oo kale ee ay tahay markii uu xilka ka dego ama xilka laga qaado ama xilka uu gudan waayo arrimo caafimaad ama lagu sameeyo impeachment oo baarlamaanku ay xilka xayuumiyaan ayaa gudoomiyaha baarlamaanku sii haynayaa xilka madaxweynenimo ilaa inta laga dooranayo madaxweyne kale laakiin tani ma ahan midaas oo kale yeysan dadka shacabka iyo qaldin ra'yu caalamka madaxweynaha marka uu xilka gudoomiyaha baarlamaanka ku wareejinayo waa marka ay arrimahaas aan soo sheegnay ay dhacaan ama xilka laga qaado ama impeachment lagu sameeyo ama uu xilkiisa gudan waayo arrimo caafimaad ama macnaha ishaq safaradiisa oo batay oo dibadda uu waqtigii 45 cisho ka badan uu ku maqnaa oo kale ama uu isagu iska casilo ama maaragtay ishaqeen siyaabo kale oo qiyaamo qaran uu sameeyo oo kale oo xilka laga qaado oo kale markaas ayuu gudoomiyaha baarlamaanka xilka siyaanaya ilaa inta madaxweyne kale laga dooranayo laakiin hadda kulligood hay-adihii dhan baa loo wada kordhiyey hay-adahaasna si sharciya ayay usii joogayaan ilaa iyo inta laga dooranayo baarlamaan inta laga dooranayo guddoon baarlamaan inta laga dooranayo madaxweyne aan xilka wareejinna oo madaxweyne lagu bedeli lahaa aan la keeninna madaxtooyada soo banne oo dalku fawda ha galo oo cid maamusha ayay jirin oo kala dambeyn iyaysan jirin waa arrin fawda mucaaradkana arrintaas ka fiirsadaan iyaysan dadka shacabka iyo dowladana iska horkeenin ayaguna nidaam iyo system in la helo ayay u socdaan markaa systemka iyo nidaamka yay fawdo ku raadinayna si wanaagsan oo fikrad leh oo ayaga ay doonayaan inay waxa hadda jira wax ka bedelan ay u keenaan ha la yimaadaan fikrad ha la yimaadaan hadday siyaasiyiin yihiin siyaasiyiintu ha keensadaan wax ideology oo fikira oo ay aaminsan yihiin oo ay rabaan ummadda inay u sheegaan ha keenaan system iyo nidaam dowladeed iyo wax ay rabaan inay ummaddan ay ku horumariyaan ha keenaan objectiviski ama goolkii ay rabeen inay dadka gaarsiiyaan 4 sano ee soo socota laakiin yay ku mashquulin inay yiraahdaan madaxweynaha kaliya madaxweynaha xasan sheekh meesha ha banay madaxweynaha xasan sheekh ha banay oo xasan sheekh iyo jawaari iyo cabdirashiid cali sharmaarke intuba hal system ayay ku wada jiraan maxaa kuwa kale loo hadii ilaahay ku rooyahay ishaqeena loo target gargelin lahayd of course madaxweynuhu waa head of the state isaga ugu sareeya yani state ka oo dhan waa sharci ilaaliyihii laakiin waxaan oran lahaa ha iska daayaan yani shakhsi farku fiiqa iyo maxaa la yiraahdaa inay mar walbaba ay target gareeyaan madaxdii dalka inay dawladdii caayaan inay qarannimadii Soomaaliya dhan ay dhaawacaan waxay ay cileeyaan oo ay yiraahdaan dawladda dhan hala baneeyo taasi waxay keenaysaa inay u ekaadaan niman aan system iyo nidaam dawladeed doonayn ee fawda raadinaya qodobkaas waanu ka soo horjeednaa mana taageersanin waxaana leenahay dawladdu ha sii joogto ilaa inta dawlad laga helayo maxaa yeelay marabno gaab iyo kala faa'iideysa inay mucaaradka hubaysan
iyo inta nacayb dowladnimada Soomaaliya inay ka faa'iideystaan oo systemkii ay baabiyaan oo dalku uu galo qalqal siyaasadeed iyo qalqal amni intaba ma doonayno waxaan doonaynaa in dalku sii ahaado maamul sii yeesho dowladana ay sii jirto ilaa inta dowlad kale laga sii dooranayo waanu soo aragnay waxa ay tahay dowlad la'aan qodobka afraad ee aan jeclahay inaan kaga faa'iideysto munaasabadan waxay tahay arrimaha shirka madasha ee baryahan dambe socday ee la isku mari la'yahay waxaan soo jeedin lahaa sida dadka qaarkood ay qabaan inta badan in aqalka sare laga saaro meesha oo Soomaaliya uusan dan u ahayn maxaa yeelay aqalka sare waxa uu caqabad ku noqon doonaa systemka dawliga ah iyo sharciyada ay soo dejiyaan baarlamaanka hoose aqalka hoose oo dawladda ay soo gudbiso oo waxa adkaan doonta in labadooda la kala saaro maxaa yeelay ma diyaarsana sharcigii kala hagi lahaa lama diyaarin wax aan sharcigii lagu hagi lahaa lagu diyaarin hay'ad aan sharcigii ay ku shaqeyn lahayd la sameeynin in ayada la aasaaso waxa ay noqonaysaa yani guri maran oo la dhisay wax alaaba iyo wax dad isticmaalaya aysan jirin taasay noqonaysaa mid kale aqalka sare uma baahnin dawlad ahaan Soomaaliya uma baahna mana baahi loo sameeyana ma jirto dhaqaale ahaan way nagu culus tahay oo hay'ad dhan oo midda baarlamaanka kale ay noqonaysaa 300 qof 200 qof 500 qof loo shaqaaleeyo hay'ad loo dhiso maxaa la yiraahdaa qarashaad iyo budget loo qoro waxaasna kama bixi karno wax ay macnaha Soomaaliya u soo saaciidineysana ma jirto waxaan ugu filan baarlamaankeena kaas ayaanan anigu aaminsanahay in kaligiis la sameeyo midda kale Soomaalidu ma taqaano aqal sare si loogu shaqeeyo ma taqaano nidaam system nagu cusub weeye dawladihiina soo mara ma lahayn aqal sare waxaan lahayn nidaam baarlamaaniga sharcigu hadduu baas garoobi waayo waa la soo celinayaa haddana mar kale dib loo soo celinayaa waxaan oran lahaa in kaas laga tanaasulo ayaan jeclaan lahaa maxaa yeelay wuxuu abuuray khilaaf siyaasadeed iyo in uu dadkii sii kala fogeeyo colaad cusub oo siyaasadeedna uu abuuro ummaddiina ay u fahmaan qabyaalad iyo qabiil iyo waxyaalo kale loo kala garto gobolna loo kala safto kabacdina ay dhibaato ka abuuranto oo hadda waad u jeedin inta maalmood ee la isku afgarin la yahay arintaas ayaan anigu soo jeedinaa in asaga dhanba la laalo haddii aan la laalayna si siman loo qaybsado gobolka Banaadir oo 3 million oo 3.5 million ku nooshaa 3 million iyo bar qof ku nooshaana in la qadiyana xaq darro ayaan u aragnaa mana ahan system jira adduunka ka jira caasimad ummadii ku noolayd oo ilbaxnimada iyo tirada iyo tayadaba ay dalka Soomaaliya dadkii lahaayeen dhan isku yimaadeen in la qadiyahay waa xaq darro mana aha wax wanaagsan maahan arintaasna waxaan oran lahaa ayadana in laga fiirsado ayaa wanaagsanaan lahayd la wanaajiyo tan kale aan doonayaa ka hadlo waxay tahay arinta Somaliland dadka walaalaheena jooga ee midnimada u jooga ee midnimada raadinaya waxaan kula talin lahaa dawladda iyo maamul goboleedyada iyo ummadda siyaasiyiinta dhammaantood in si wanaagsan loo soo dhaweeyo in walaaltinimo saa'id loo muujiyo in haddii cid sadbursi loo sameynayo ayaga loo sameeyo maxaa yeelay ayaga ayaa ehladoodii iyo guryahoodii iyo dalkoodiiba ay ku noolaayeen ku dhasheen uga soo tagay ayagoo midnimo raadinaya marka waa in ayaga si wanaagsan loo soo dhaweeyaa waa in ayaga sadbursi loo sameeyaa waa in ayaga walaaltinimo hadal wanaagsan iyo haddii wax loo badinayo cid ayaga in loo badiyo weeye weliba wax loo gooyo oo maaragtay isha gobolada kale looga soo jaro maxaa yeelay waxay u taagan yihiin midnimadii waxay u taagan yihiin maxaa la yiraahdaa inay Soomaaliya isku keenaan waana arin dahabiya oo aad muhiim noogu ah haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed iyo shacab weynaha Soomaaliyeed iyo inta jecel midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed aad ayaad u mahadsantihiin kullu caam wa antum bikhair ilaahay subxaanahu wa ta'ala sanadkan sanadkiisa kale caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban ha iskugu keeno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.